صدو صفرس. السلام عليكم. عليكم السلام. نعمتها هاي ستها فيعن نعمتها نبض ما شاء الله. الحمد لله. يا ماديس هيه مرتد عندي شيء جواي شامل هذا. سيبرتا. برشلونة تصدقوا soo dhawaad aad baa mahadsantiin sida gabadha idin sheegtay magacayga Shaam waayo gabadhan baa waxa sheekaysanaa in muddo ah sheekaysanayne ha maxaa ka sheekaysanaysaa waxa ra ujeedka halka u imaada si fiican igala dhacsiyo haye ugu dambeyn waxa isku fahanay ama ku heshiinay guur يا aamusaade haye what mando guur ku heshiinay haye waxay tiraahday guriga imaw reerku way joogaan haye iga soo doono haye marka gabadha u baahnaa gabadha u baahneed allah soo yaadaday gabadha u baahneed aan ku weydiiyay gabar dhaqanka lagu soo doonto ma taqaanaa gabar la soo doonanayo hadal baa ka soo horeeyay in marti dadka adig ka socda inay inta noo imaadaan noo digaan in soo doonasho iyo la leeyahay laakiin gabadheed xagee ku barato su'aalan ku weydiiyay hooy hadda barasho oo socod dadku way imaanayaan laakiin inaa siin baro oo macna isi ogeysiiyo in martida iyo familka iga socdaan inay imaanayaan ba u imaaday ma aha in gabadha hadda isiisan ugu imaanay qabiilkaaga maxay ugu soo diri weeday hadaa gabadheed soo doonanays qabiilkaaga ba ku ka soo hormari lahaa adiga laakiin inda adeeg wada xagee aad isku barateen hooy aan qabiil uma soco Soomaalnimo ka socda su'aashi iyo jawaab xagee isku soo barateen maras baran xagee ila gabadha guriga kaba baxdee xagee ku bart magaalada isku baran magaalada ilaa wiilasha darbi istaag taa magacaaga Shaam oo magac kale ma qabtid miya magac ciyaalka oo darbi istaag ahay waa dhageys maandhow hooy maxaa kulaalka dhageys gabadheeda hadaa darbiyada kula soo sheekaysat tu kale inta darbiyada ka raadsatid ka guurso ka raadso hooy si sharaf la u socdaa sharaf ma socotide xubaana ma wato dibna ma wato reerkeygana way idii imaanaya barasho hordhaceeda u socdaa dib kale ma jiro hooyada la bartaa marka hadii qof la baranayo reeda aniga adiga isma fahmeene waa ila doonaysaa abooba joogaan guriga aabu maqan yahay hooyo walaal sii baro marka isfahanno ama barasho idin sheego ka bacdi baa odayaasha ma gaarin ba gabadheeda ma qajib baa taadi gabadha 16 jirka dab wadada inta u istaagta aqliga ka xad Soomaa markaas darbiyada kula sheekaysanaysa waa macaan ani adiga isfahmi mayne waxa ma ku sheegaa gabadha neeto اوكي هذا اوكي magaca waxa dhaw Shaam Soomaa Shaam magaca gabadha neeti qatro aniga walaashii ma fahanti in ma qablo soo sheekaysanaysan rag waxa ka gala bileed sheekaysanaya hooy ku biraan maraa hadalna door ali tali rag was fahmaan gabadha walaasha gabadha jecelahay waa gabar aydan jecel si sharaf leh oo karaamo leh u socdaa gabadhiina aniga wada xun iyo dhibaato uma horseedayo guur baa rabaa rag odayaasha aniga mas'uuliga ahaayeen way imaanayaan waxa uu imaaday hordhac iyo barashada isbarano ka bacdi familka markaas fahmo familkiga u sheego familkiisa idii imaadaan sidii lagu yaqaan ee gabar loo doono jiray inay u soo doonana u baahanahay dib kale ta ama xumaan kale oo jirta malaha saaxiib hadaa wanaag rabto inaad kula sheekaysto guriga leedahay gabadha gurigeeda inta ugu imaado baad kula sheekaysan lahayd darbiyada maada la istaagtayna alxamdulillah hadaysan wacala ii keenine walaal macan hooyo waxba ninka la sheekaysanine gabadha si sarabtaa micni surka inta ka qabat ilbaabkaas waxba wareysan ilbaabka ayaaga bixin kan adigu ku bari ani hadda ma xushmay kartaa adiga arkan hadda qibisu kaadaan hadlo bal hadal waayay wax wanaag kama soo socday xataa ma santahay si sharafta gurigan ugu imaaday wad ku maasantahay waa mid koowaad mid labaad waxay tahay waxa kaaga mahad celina inaad si sharaf la gurigan ugu imaaday taas waa gooni sababtoo waqti xaarkanti jiilka jiro banaanka loo kala baxo wax waliba markay banaanka loo kala baxo wax waliba kala daateen aguur isku yimaadaan qof jecelahay wax ma uma qooro banaa inuu wax maato ku sameeyeen sharafteeda ka weyn qofka markuu mustaqbal ka rabo uu nolol ka rabo ayatiin ka rabo ma ahan inuu macnaha banaanaas wax maato ugu geysto nin weyn oo mas'uul ahay mas'uul ina gabadha xumeeyeen sharaf iyo ma ahan walaashi in la xumeeyo aniga ma rabi si sharaf leh oo karaamo leh oo sumcad leh gurigeeda u imaaday hadda ay wanaajinaysan iyo dad xumaanaysan wax walba dib in hoos yeelan okay dhigeysa markii waran ku siiyay hadda waad qaada kan siin rag laha wadash ma fahanti waxba kama maadan ilaa hadda hadal dhocileeda u jeeda labadiina isku laadaysan oo ninka iga bix gabarteeda si samaaye warka halkaas ku egyahay iga bixay
maxaa niga uu wanaagsan yahay tan ninka uu wanaagsan lacala hadaad bixiso ma ninka la haysaa hooy macaan runta la isku sheegay ee u kaada mar gabadhayda aragga inta waryaa waxa aragta aan ku canaananayo ayac ku leeyahay ina waryaa waa gabadhayda waa dheecankayga waa dhiigayga mar walbana waxa rabaa boqortooynimada in loo guursado mid xiro wadada inta ku soo sisto jidad ku istaagay waxa loo guursaday meega xogaa way kula shaakowdi dhageyso ma ahanay hor iga tag hooy macaan adiga ku bariya hal daqiiqo bas iga aamus adiga saaxiibo midaan ku sheego gabadha toor anaga ma qabno balaanka laga soo barto runta kala hadla si serious ah haye hadda waqti xaadirka ilaa hadda aniga wax uma ku geystay maamay erey qaldama afkayga hadaan gawar maxmad ma geystay hadalkayga dhageyso gawar maxmad ma aan ka hadlaado goraaliya wax gacma ku gulimaad sumcad ma taqaantid saa ku soo gashato uma fudud ku bax sidaas saas ma garateen sidaas ku bax ama hadda maxaa saas ku diidanaa marka walaana ma ninka tuugays macne waxayna tuugaa ma jirin de hooy waxa wadaadku waa laga dhuraa isla soo qofka laga dhursa ka dhuri maaye ninka gabadha wadada u istaagay labada lugood isdhaafisay ahayd allah ha saadiyo labada lugood inaa isdhaafisay saadiyo dhageysanne kaan umayay hooyo barta fadhiiso maxay tahay sidan inaad banaanka ka soo baranay si direct guriga uu keenay halisi hali guriga macluumaadka saas ma ku soo arurtay guriga ma afartadii ba ku jirtay macluumaadka kugu noqotay إيش أقبل؟ hooyo maxaa waxaan ku weydiiyey waraamus waxaan ku weydiinaa su'aal hooyo hooy gabadh nin waa shukaansataa hay lama diidano hay laakiin ceebta maanta ii keent allah hadduu aabbaha ku maqli lahaa xataa uma malaynaa inuu wanaag aad ka sugi lahayd lafaha inuu ku jajabi lahaa waxaan ku weydiiyey hooyo haddaad maxaa ceebtii aniga iigu keenaysaa maxaa balaayada subcadda igaaga ridaysaa ninka haddaa rabtid maa guriga keensatid naaya oo kula sheekaysatay halkan hadda halka banaanka miyaa hooyo ninka yiri darbiyadaan kula soo sheekaystay gabadha maxaa ii harayba soo gabadh ciyaar suuqada ma tiido darbiyada istaago hooyo ninka telefoon la iska baran rabo telefoon asigana wuxuu yiri banaanka ku soo bartay gabadha hooyo telefoon banaanka saas ugu joogaa madam هاي فير كلا باشا. هاي جدا كجيل وقع مدالس هذا مين مخشاه ma iga aamusa saacad دقيقة كده هذاك هذا صوت رسالة hooyo kuriga inuu saa igu qayliyo adaa baray hooyo adaa baray inuu saa igu Gabadha qayliyo inaa kaa celceliyaa qaladka lahaay inuu maalintu lugaha dhawaa ka jabina aan dhaho ka leexa baa qalad ku lahay Waxaan ku weydiiyey. gabaraan kuu fiiriye dhageysa intaada hadda wacala iyo balaayo ii saxareen Hooy, waxaa waa inaan nin kugu daraa nin wiil Hooy. qaraabada walaalkeeya inaan kugu daro waayo ceebtaada si kale kuma asturi kariye haddiiba uriya hadda hooyo gabdhacdi naagaha uu keenayo waa arkaysa u soo dhawaa aniga dhahsi biyo u keen Dhageyso. aniga ninkii aan keensana saasa loola hadlaya ma hooyo ninaa keensane maxaa keensan waayna hooyo si sharaf laa la iga soo daa shukaysanaysanaya maa guriga keensatid هاي في دقات إيش تسوي مرة بس هيك لا ده أنا مين مخشاه مرة دمك سكوري جمس استاكر عندك سينة سنة ماله نين مصابات أنا كوكيناي هاي من السكو حرية adaa ii keens miya ماذا أنا حنون تسمع نين كنت aawa kii walaalka ahaa taan gurigan laguma wada joogaaye